wararka soo baxaya xaaladda dagaalka ee u dhexeeya Mareykanka iyo Iiraan ayaa la sheegaya in xiisadu marba marka dambe ka sii darayso. Maanta oo lagu waday inay wada hadal ay ka qabsadaan dalka Pakistan ayaa waxaa la sheegaya inay wada hadaladii fashilmeen isla markaana ay diiday dowladda Iiraan inay kasoo qayb gasho wada hadalada ay dhexdhexaadinayso dalka Pakistan. dowladda Iiraan waxay ku doodaysaa ay leedahay inta meel cadaadin hayo naloo cagajugleyn hayo nalagu hayo godoominta kama soo qayb geli doono, iyadoo shardi ka dhigtay ilaa laga qaado cunaqabataynta ama godoominta Mareykanku uu saaray dekedaha iyo maraakiibta dalka Iiraan. dhinaca kale dowladda Pakistan ay dhahday ayaa dadaal badan bixinaysa sidii wada hadalladaas ay u miro dhali lahaayeen inay u fashilmeen dagaalkana aan dib loogu noqon. waxaa dhammaatay muddadii xabad joojinta ee ku meelgaarka ayaa dhammaatay, hase ahaatee madaxweynaha Mareykanka ayaa ku dhawaaqay inay sii socon doonto xabad joojintu inta ay wada hadalladu ka miro dhalayaan. Trump ayaa sheegay in uu jiro khilaaf ka dhexeeya dowladda Iiraan dhexdeeda, sidaa darteed wuxuu yidhi inta ay soo heshiinayaan wada xaajoodka ay kasoo aqbalayaan wuu sii socon doonaa xabad joojintan ayaa hal dhinac hadda oo dhanka Mareykanka keliya ka jirta, mana una sheegin waqti cayiman oo xabad joojintaas sii soconayso. dhanka Mareykanka Hormuz xiisadiisa ayaa kor u sii kacday kadib markii ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan ay 2 markab gacanta ku dhigeen. sidoo kale ciidamada Mareykanka ayaa iyagana la sheegay inay 2 markab oo kale iyaguna gacanta ku dhigeen. xaaladda marinka Hormuz iyo badda ayaa waxay u egtahay mid la isku baacsanayo, iyadoo midka kale uu ku eedeynhayo eedeymo waaweyn u soo jeedinayo inuu xabad joojintii jabiyey, isla markaana ay u muuqato mindi ku taag. dhanka kale dowladda Pakistan ayaa muujisay rajo ah inay wada xaajoodku dib uga bilaabmi doono magaalada madaxda dalka Pakistan Islamabad maalinka Jimcaha. waxaa laga yaabaa in wareeg kaleeto halkaas la iskugu yimaado, iyadoo uu fashilmay wareegii koowaad isla markaana lagu kala tegay iyadoon wax natiijo ah haba yaraatee aan laga gaarin. halka aad warkan kala socotaana waa Newsboy News. channelka subscribe dhaha, share gareeya, aad baad mahadsantihiin.